shirkiga laga tago oo sanamyada laga tago oo dhaqankan xun iyo caadada laga tago iyo xoogga saarahay wuxuu xoogga saaray oo kale inuu helo dadkii dacwadan qaadi lahaa oo xambaari lahaa marka wuxuu sameeyey nabigu calayhi salaatu wasalaam kolkuu dacwada rabay inuu qaado wuxuu raadiyey dacwadu waa macnee dadka xambaari lahaa wuxuu ka bilaabay dadkii ugu xigay qureysheed muuna aadin qabaa'ilka reer carbeed wuxuu raadiyey dadkii ugu dhowaa waxaa ka mid ahaa xaaskiisa khadiija dacwadii uu ku bilaabay waxaa ka mid ahaa oo kale ninkii mawlaha u ahaa la odhan jiray zayd binu xaarithata oo isna dee mawlihiisa ahaa yuu isagana ku bilaabay waxaa kaloo ku bilaabay caliy bnu abi aalib oo gurigiisa joogay oo haddee qaraabana la ahaa saddexdaa markuu ku bilaabay wuxuu u gudbay abubakar abubakar sidiiq radiallahu canhu wuxuu ahaa nin bulshaawi ah nin qabaa'ilka carabta yaqaana nin ganacsada ah oo dad badani ku xidhan yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen calaaqo gaaray lahayn abubakar buu u yeedhay wuxuu ihi waxyiganaa laygu soo dejiyey dacwadanaan rabaa inaad qaadato okay buu yidhi abubakar markuu dacwadii qaatay waxaa kaloo uu u yeedhay abubakarna dadkii isaga kusoo dhowaa raggan casharatulmubashiriinta le dhowr nin oo kamid a intooda badan cuhmaan binu cafaan zubayr binu cawaam cabdiraxmaan binu coof sacad ibnu abi waqaas dalxa binu cubaydillaah abu cubayda casharatulmubashiriinta raggaa la yidhaha badankooda kolkaasaa loo yeedhay waxaa kaloo loo yeedhay abu salama iyo umu salama oo iyaguna qoys aha waxaa loo yeedhay oo kale dalxa binu cubaydillaah waxaa loo yeedhay oo kale arqam ibnu arqam ninkii gurigiisa lagu sheeri jiray wey dadka gurigaa kolkii ragga dadka lasoo gelinayo gurigaasaa loo tilmaami jiray waxaa la odhan jiray guriga aad kolkuu meeshaa galo ninka gurigaa yimid raqam baa la siin jiray raqam 6 raqam 7 raqam 10 raqam 7 leys baa meesha yaalla malala ruuxii soo islaaman rag iyo haween raqamkaa meeshuu ku joogaa la siin jiray waxaa laga yaabaa adugu inaad 20 gasho 30 gasho saasaa loo wadi jiray guriga lagu shiri jiray arqam baa lahaa cuhmaan binu madcuun baa ka mid ah ragga loo yeedhay waxaa ka mid ah cubayd binu xaaris oo nabiga qaraabadiisa ahaa saciid ibnu zayd oo sodogi ahaa nabiga yaa u dhawaaba ka mid ahaa sodogi mayna laakiin way isku dhawaayeen imra'adiisii oo faadimo bintu khadaab ahayd baa ka mid ahayd oo ninkuu cumar kusoo islaamay ahayd waxaa kaloo u yeedhay jacfar ibnu abi aalib yaa loo yeedhay imra'adiisii oo asmaa bintu cumays baa loo yeedhay dadka aan sheegayn oo dhan khabaab baa ka mid ahaa dadkaa oo dhan waxay ahayn qurayshtii nabiga ku dhawaabay ahay intuuna carabtii kale u gudbin buu qurayshtii buu ka dhaadhiciyey dacwadan markii dambe wuxuu la kulmay oo kale cabdullaahi binu mascuud oo waaguu yaa ka mid ah raggu ugu hor yeedhay iyagana waxaa ka mid ah mascuud ibnu rabiica cabdullaahi binu jaxshin bilaal ibnu rabaax madowga ninkaa keliyaan ka aanaysanaa soo ma bilaal waktigaasu isagana loo yeedhay suheyl ibnu sinaan camaar ibnu yaasir iyo hooyadii iyo familkiisi reer yaasir umu ayman oo aabihii uga tegay oo addoon waag aabihii uga tegay ahayd umulfadal oo cabaas uu qabay asmaa bintu abibakar dadkaasu haddana u yeedhay kulligood dadkaa waxaa loo yaqaanaa asaabiquuna alawaluun gruubka la yidhaahdo dadkii hore qur-aanka waad arteen maxaa wasaabiquuna saabiquuna meel baa lagu sheegay meel kale maxaa lagu sheegay wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar soo maahin dadkaa waxaa la yidhahdaa saabiqiinta khulaasada dadkaa markuu nabigu helay waxay culimmadu sheegaan tiradooda waxay ahayd baa laleeyahay 130 meelaha dadkaa qureysheeda u yeedhay oo badhna khaasatan oo qurayshta usii xigtay badhna carabtii kale ay barhkooda ahaayeen waxaa lagu qiyaasaa 130 130kaa markii uu helay 3 sano waa 3 years oo intaa dacwadu sirri ahayd ayuu kolkii dambe
وحلو قد بدونا مرحلة لبعض مربا كهذي دونا صدح ذا سنة وضدك محوسية نبي كو وحوسي ورتا كلمة التوحيد كمعاني دي حولي كلمة داني وحسا كل حجرة وحكى له حل إلى هذا أنت هتمد صلاة وقتك هتمد بالي هذا كوانك بركود صدح ذا سنة سر جاهي بي صلاة تمد بالي هذا بركة صلاة بركة للتكذي قولها لو من جري لو مد عينين لو قلت كذا كعبة عجيب رجع ماشي عايز هذا لو قلت علاج غزاء إلى وقت أول قلت لا نين محمد لو الأجمره لما أقولين نمان رجع جا بيجالي رجع دويد بماشي حكومة 3 years كهول كان نبي وحوس بي إنه رجال قبله حيا الله في دبرك ضدك ما كان حجان قبلها إيوه رجو ضدك سالة دسي markii dadka uu dhisay waxa la yiraahdaa 130 kaas walkii uu sameeyay oo isku hubo oo dacwada ay ka dhacday 3 sanana ay dhamaatay baa dacwada kolka kor loo soo qaaday aayada ka warramaysa suurada shu'ara maxaa ku jirta wa andir ashirata al-aqrabin kolkaas oo ashiradiisa kale yu kor soo qaaday وحنا وكجدين هي بالي أرنتاس مستاقن سيدنا محمد وحو كجدين هي بالي نبي الله موسى نبي الله موسى مركب فرعون الله دري فرعون مونا آدي كل كهر فرعون ويدم بيسوجيس نمك إلا أدون سنة يو ريبني إسرائيل بو آدي كواسا وحو كده أدعيي لبك هايستا إلا وقام نبي موسى وإساقا بطبان سنة من فيها وقول كونينك قاعد تقول أنتي وكي أرض شعيب جوجي طبعا أنا مركو كسر نقدنا وحي قال لسيه وحلوط دري يقول كفرعون وحوقت سدي ولالك سورة الشعراء مركز فيرسو وآيات يكون جرتو وأنذر عشيرتك الأقربين قصص كمركز فيرسو النبي الله سليمان النبي الله موسى وهو حسمي آدو عجبا هورت الريب بني إسرائيل بقبل هذا وحجري إنه نبي إذن هايستم أكتين هابلي وليش إن الجورعه قبلين لسكاء الدون صدق حوله إنه يسوي والدقات كده وحواجه نبي الله موسى وحكويري ولك هارون وإلى الصعداء والله بدو يسوق تجين فرعون مركز ثاني جروب كيسي أن آذين markii fircoon iyo groupkiisa la aadahayo nabi ilaahi maxamed quraanka lagu soo dejiyo waxa kamid ah qisaska ummadii hore waxa looga waramay waxa ku hor yaala inay dhib badan tahay nabi ilaahi nuux baa qisaysa la soo qaaday waxa la soo qaaday riyaad thamuud fircoon waxa la yiri ummadaas ambiyadii ka horeysay ee loo diray dhib bay kala kulmeen waxaad ku dayataa baa leeyahay nabi Muuse dad meel kale ba gaarin kolka hore qoomkaaga ka dhaadhicay baa leeyahay sidii nabi Muuse uga dhaadhiciyay reer bani Israa'iil dacwada ko ardaas kolka waxay noqotay nabi ilaahi maxamed in wax suuroobo oo uu dad helo dadkii sidaa lama deeyni waa la kala caydin doona ragga ahaa ee meesha haystay yaa dacwadii dhex galay heer wuxuu gaaray nabi ilaahi maxamed meesha aad aragteen xiriiriga شيب أبي طالب بالي لو عيدي يراعي بني هاشم يا بني مطالب براعي لبدي جريبة يجون قرابتي سبب بني نوفل عبد الشمس وهكذا وأقول دجالك بيجري كل كأل كلا جو ورمها يوحالي بني هاشم بني مطالب على قدره بني نوفل يو وعلى جري بري عبد الشمس اسكو قرابة واسكو بينه ويجري النبي كودين تقاتين كوانا ويلي دجال بهاي halka ciriiri badan baa ka soo gaaray nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam in gosha la galo oo la cunaqabatayn duwaaga iyo bilaawatay bilaashad mooysan lagama guursan karaa leeyid cunto looma keeni karaa leeyid saxiifadii baa la qoro meel baa lagu dhijiyay walkaas leeyid ninkii meesha nimanka ugu taga haba waqtiyeen hala go'doomiyo dhibaatadaas nabi ilaahi maxamed soo gaadhay way tafaaqubtay kolkii dambe dhibaatadaas kolka waxay ku bilaabatay markuu dacwada sirriga intuu ka baxay kor soo qaaday oo leeyay fasdac bima tuumeru waarad mushrikiina kolku 3 sano dhamaystay oo uu dad helay yu dacwada kor soo qaaday wuu muujiyo banaanku keenay
marka waxa ku bilaabmay tacdiib in walba la dilo in walba la xiro hijrada artay ardu xabasha loo cararay markaas ay bilaabatay in wali la fiisay inuu la baxsado oo boqorkii Najaashi yuu ninkaas caadile u taga aniga waxba idin kama qaban kareen gruubka ugu horeeyay oo Jaafar ibn Abi Talib uu watay halkaas uu yaacay dhibka ugu yaacay doomaha artay qaateen oo badanay mareen kolkaas ay ardu xabash tageen waa lagaga daba tagay in la soo celiyo yaa looga daba tagay waxa la nimanka saabiyin weeye intii boqorka loo tagay waxa la nimanka noo soo celi Amr bin Aas baa la diray balaayaha oo ay ninkaan ay siiqineen oo wadanka ganacsan jiray iyo nin kale laakiin kumuna guuleysanin oo boqorka ayaa caadila wuxuu waxay sheegayaan iyo waxa idinku sheegaysan baa isla dhageysan haddii waxay sheegaan wax macquul noqdo ma celinayo haddii se wax macquul uu noqon waayo waa idin soo celina guushi waxay raacday Jaafar iyo muslimiintii muhaajiriintii bay raacdo wixii wax macquul maxaa isku diidantiin waxaan isku diidanahay anaga nabi baa noo yimid quraan buu noo keenay khayrkan uu keenay ayuuna wayna dilayaan bay dacwada horta dhibkaas ay leedahay inta haddaan dacwada kaga baxno waxaan maanta wuduux ah oo horteena taala dhibka muslimiintu maanta dulligay ku noosha uma baahna daliil in la yidhaahdo maxaa muslimiinta haysta waa wax meeshaan gaadhnay waa meel oo waxyaalanka dhibkaasina waa uun diinta oo laga leexday ruux walba 9 bilood buu ku dhashay caqliga ilaahay siiyeyna in buu siiyey bal waxay maanta inaga muslimkii oo aan khamri iyo baqti aan ku jirin inaynu nadiif ahaano adduunka hogaamino runtii ragii horena way hogaamiyeen dib baan u noqonay ilaa dhowr baan u sii soconaa weli waxaan nagu caqlinay isagoo oo ruux islaan iska tukado laakiin naxa wax kale oo inta weeliya ayna jirin tiima weli ku jiraa dadka ka soo horjeeda kolka diinta ilaa waqtigii hore way dad fikirahay waa dad ku xisaabtamay inay aakhirana dad u diraan adduunkana noolaadaan la aakhira waxa ku diray kolka adiga aad meesha adiga gabto waxa weeye waa lagugu iman adduunka diin ahaan la isuma jecla degaan ahaan la isuma jecla dhaqaalahaan la isuma jecla kolba intii kolka iyadu raganimo samayso oo baa adduunka hogaamisa maanta waxaad miitaal u aragnaa in oo konton iyo 5 dawlo ma ahaayeen konton iyo 5 dawlo soo saas maahin oo muslim sheegata hal nin baa madaxweynahoodu gaal ka yahay inta aan ka warqabo hal nin inta madaxweynahoo dhani waa Lebanon way halka madaxweynaheedu Kristan way wax lagu heshiiyeen waa dadka intiisa kale wax madaxweynahoodu u gaal yahay kuma jiro way ku dhici waayeen inay yiraahdeen walaalana maxaa loo lay way ku dhici waayeen inay yiraahdeen waxaan siinayna maxaa ka ceeb badan oo ka dulli badan tii dadkan hore loo dulmiyay hadda iyo hadda weerarkan iyaga qaaday laakiin hadda kolkaad ruuxu naf aad gaarsiiso waa lagu la dagaalamay adiga waa dagaalamay meeshaasaan horta joognaa waxa la inooga baahan yahay ruux walba soo fikir dacwada maxaad ku kordhin kartaa maxaad adigu qaban kartaa adigu maxaad qabsan kartaa mujtamacaaga maxaad ku kordhin kartaa muslimiinta maxaad u qaban kartaa dacwada maxaad u qaban kartaa waxa laga yaabaa haddii la isku beerbeeriyo inaynu wax badan qaban kartaa laga yaabo haddii inteenan iyo inta kolka in la midka aan dhaqaaqno waxbaan isku caqli baan isku dari karaa cilmi baan isku dari karaa dhaqaale isku dari karaa in wax fiican noqoto laga yaabo marka waxaan rabay inaan sii badiyo mar rabin hadalka waxaan u maleeyahay 10 minute waa la gaaray intaas aan horta dacwada isla wadaagaynaa kadib waxaan sameeynaa bal wixii kolka tala ayaan isla weydiinaynaa intaas aan caawa ku gaabinaynaa wabillahi tawfiiq